Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa cabitaan ilmaha ku cayilayaan nafaqo badan siinayo jirkooda u fiican. Ilmo badan oo caata insha Allah hadaa u samaysiin saan waa ku cayili doonaan. Marka cabitaankan wuxuu ka kooban yahay waa timir, caano iyo loos la isku daray. Timir iyo caano iyo loos la isku daray waaye. ilmaha si fiican ay ugu cayilaan oo kala cunuga nafaqa darsayd oo kala deesisid isbedel waqti gudihiisa waxa ku dareemay isbedel. Saddexdan shay oo la isku daray waxa ku jira fitamiina ku jira nafaqooyin ku jirta macaadin badan ku jiraan. Haddaan soo kaabo waxyaalaha ka gaarsiin karno kala waxa kamid ah calcium ku jirto lafaha ilmaha korishooda u fiican, xadiid oo kala ku jiro oo dhiig la'aanta ilmaha dhiig la'aanta ayna daawo u ah hadii cunugu fiican yahay ka hortag oo ka haysa si aysan dhiig la'aan ugu imaanin. Zinc maadada ku jirto, omega 3 ku jiro, nuxaas ku jirto, potassium maadada ku jirto. Way badan yihiin wax hadda anaga aan u soo koobi karno intaan ka soo qaadanay. Maadooyin badan ku jiraan oo ilmaha jirkooda iyo korishooda u baahan yihiin. Marka waxaan ka hadlaynaa hadirtaan faa'iidooyinka ay leeyihiin. Tan kuwad horta ilmaha ku cayilayaan oo cunuga la siiyo kale uu ku cayilaa maasha Allah. waxay siisaa firfircooni iyo daaqi tamar siyaadaha siisaa cunuga uu ku ciyaari karo uusan daalaynin siisaa. Looska iyo timirta la isku daray mid kasta waxa ku jirto bira ku jirto. Birtaas marka labadooda marka la isku daro waxay naqahay way siyaadeen mid kasta inta ku jirto kala hadii labadooda la soo keeno way siyaadeen waxay marka daawo u tahay oo looga hortaga laguna daaweeyo dhiig la'aanta. ilmaha aneemiyada dhiig la'aanta hayso kale lagu daaweeyo hadii cunugu ku fiican yahay siisidna dhiig la'aan ma kaaga imaanayso hadii la helo. Waxa laga helaa oo kala calcium iyo xadiid isla socday leeyihiin looska iyo timirta. Calcium iyo xadiid ay leeyihiin oo ah masdar dabiici ah oo meel kale aan ka imaano waxyaalo dabiici ah jirka ilmaha uu heli doono. Faa'iidooyinka kale leeyihiin waxa waaye difaaca jirka xoojisa, ilmaha ilkahooda xoojisa. Video hadda uu kankii ku horeeyay hadda diyaarinay waxaan kaga hadlaynay calcium meelaha laga helo caanaha kamid ah dhehayni hadda inta caanaha ku jirto waxa kale laga helaa looska waa laga helaa timirta laga helaa. Marka calcium waxay ilmaha ka caawiyaa difaaca jirkooda inuu adkaado, ilkahooda inay adkaadaan oo si suus iyo waxba iyo isan kaga dhalan, lafahooda inay adkaadaan. Intaas markay dhacdo waxay ka caawinayaan in cunuga xilli hore fariisto, xilli hore gurguurto, xilli hore socdo. jirkiisa iyo murqihiisa iyo lafihiisa ay adkaadaan. Waxay kale ka caawisaa oo faa'iido kale leedahay waxa waaye daadashada tinta. Tinta daadaysa daawo ugu tahay qofka hadii tintiisa uu dareemo kale in ilmaha ma dadka waaweyn waa ilmaha way noqon kartaa. Hadii qofka uu dareemo in tintiisa xajmigeedu uu dhumo tinti ay daciiftay wax yar oo jircaan oo bita camal ay noqoto uu dareemo uu isticmaali kara oo tinta daadashada ka joojisa. tinta waxay siisaa dhumuc siisaa wayna adkaysaa oo tinta waxay ka dhigtaa tin si sahal ah aan ku dhicin ka dhigtaa. Sababtoo ah waxa laga helaa saddexdan shay oo la isku daray bira ku jirto, maadada zinc ku jirto iyo selenium iyo fitamiinad. Intaas waxay marka la isku daro waxay tinta siisaa faa'iidooyin badan. In tinta koritaankeeda wanaagsanaado dhumuc ay yarato tinta oo qafiif aysan ka naqan, daadashada inay ka istaagto iyo in tinta xoojiso. inta shay la isku daro waxa laga helaa fosfoor maadada marka waxay ilmaha siisaa koritaanka garaadka maskaxdooda xoojisaa oo cunuga garaadkiisa inuu koray ka saacido maadada fosfoorka. hadii meel kale oo gooni ah oo maadada laga heli karo cuntooyin ilmaha asiisid way ka fiican tahay maadaama garaadka ilmaha ay xoojiyayso. Faa'iidada kale leedahay waxa waaye xagga dheefshiidka ilmaha way fududeeyaan cabitaankan hadaasi sidoo kale dheefshiidkooda uu fududaado hadii cunto aasiis oo kale dheefshiidku waxba kuma sii daahdo oo barkiiba dheefshiidku uu shiidaa. laakiin dheefshiidka ilmaha doo adag yahay kala cunto aasiisid kiya waqti qaadana kan dambe xilliga ku soo xigo kala quraacada aasiis leedahay kale waxa laga yaabaa cunuga wax saas ka qaadan saa dheefshiidka kii hore si fiican ugu ma dhamaan. cabitaankan marka ilmaha aasiis sidoo kale waxay ka caawiyaa in jirkiisa wixii nafaqo soo galay wixii oo cuno dhan si fiican looga nuugo. hadii cunug uu calool adeeg qabo kale saxaradii waxa ku adag tahayna waxay u tahay caloosha u jilciyaa. faa'iidada kale leedahay waxa waaye jirka wuxuu ka saartaa sunta ka saartaa
faa'iido kale leedahay waxaa waaye ilmaha markay xilliga ilkaha soo baxayaan ay kale ay ku jiraan ilkaha soo bixitaanka waxay leeyihiin xanuun markii maadooyinkan la isku daray cabitaanadan saddexda ah oo la isku daray hadda cunuga siisid ilkaha xanuunka ilkaha soo bixitaankooda wuu ka yaraaha si markii uu si fiican ugu sii caawiso waxaa fiican inaad wax yar talaagada gelisid qabow yar markay naqdaan cunuga saas ay ku siisid maxaa lahaa haddii kalena geedka yarka ilmaha iyo cunto wax loogu rido ay ku nuugaan oo kale waxaa sameyn kartaa looska timirta ugu ridi kartaa wuu qaniinaa marka qabow wax yar fridge-ka gelinay wax yar markuu soo qabo u dhiibay cunugii wuu qaniinaa xanuunka uu ka yaraahay oo inta badan wuu ka daynaa faa'iido ugu dambaysa waxaan ka dhigaynaa hooyada naaska nuujihayso haddii ay dareentay in caanaha naaska ay yar yihiin oo kale maxaa lahaa cunugu uusan ku dhargaynin haddii ayada ay cabto caanaha naaska si la yaqaan u badinayaan xataa macquul noqonayso inaad u baahan inaad cunuga caano u qasid oo caanaha naaska ay dharji doonaan taas waxaan ka dhignaa faa'iidada ugu dambaysa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin marka soo dhawaada haddii waxyaalo aad jeceshiin in kaga soo hadalna qaybta commentiga noogu reeba haddii aad cusub tahayna subscribe noo saar gambaleelkana furo haddaa familka ka tirsan tahayna like noo saar iyo share si dad badan u sii gaarta anagan dhiirigelin noogu noqoto waa mahadsantihiin soo dhawaada